Waa mid ka mid ah gabdhihii loo qaaday jasiiradda Jeffrey Epstein ee loo geystay tacdiyadii isugu jiray kufsiga, jirdilka iyo ciqaabaha kala duwan. Waxa ay ka mid ahayd gabdhihii u tartamayay tartanka quruxda adduunka. Waxa ay ka sheekeynaysaa goobtaas go'doonka ah waxyaabihii ay ku soo aragtay, meel aan xeerar bini'aadantinimadu aysan ka jirin, oo ay ka taliyaan oo keliya kuwa awood qarsoon ku leh dunida. Dad caan ah oo isugu jira wariyaal, siyaasiyiin, ciyaaryahano iyo fanaaniin ayaa ku jiray kuwa geysanaya tacdiyada. Waxa ayna kaga sheekeynaysaa sheekadeeda. Gabadhani waxa ay ka mid ahayd gabdhihii loo qaaday jasiiraddaasi, iyada oo saarneed diyaaradda gaarka ah ee Jeffrey Epstein. Qirashadeeda ayay kaga warrantay wixii ka dhacay gudaha diyaaraddaas iyo waxyaabihii ay halkaasi ku aragtay ka hor inta diyaaraddu aysan caga dhigan jasiiradda. Kadibna waxay faahfaahisay dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee gudaha jasiiradda ay ku soo martay. Waxaa si gaar ah xusid mudan in markhaati furkeeda ay kaga hadlayso martidii ay halkaasi ku aragtay, kuwaas oo isugu jiray Israa'iiliyiin iyo Carab oo hal meel wada fadhiyay. Qaybtan gaarka ah ee qirashadeeda gabadhan waxaa laga saaray mareegaha warbaahinta iyo kanaalada gudbiya wararka. Hase yeeshee, inagu halkan waxaan idinkugu soo bandhigaynaa markhaatigeeda oo dhammaystiran, sida ay u qoran tahay qoraaladeeda baaritaanka, iyadoo aan waxna laga jarin ama waxba lagu darin. Haddaba inta aanu qiraalkeeda u gudagelin, haddii ay tahay soo booqashadaadii koowaad ee channelkayga iyo channelkeena Xalana Media, nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibadeena halkan ku xiran. Haddii aad igala socoto bog warbaahineedkeena Facebookna, nagu soo biir ayaan ku leenahay sidoo kale. Waxa ay tiri, waxaan ahaa xilligaasi boqorada quruxda, heer ahaan mid sarreysa. Marka la joogo gobolka Arizona, sida gabar kasta oo da'dayda ah, waxaan lahaa hami ah inaan u gudbo heerka ugu sarreeya ee dhanka quruxda. Runtii aniga iyo koox kale oo gabdhaha ayaa naloo xushay inaan ka qayb galno tijaabooyin loogu sheegay inay aad u muhiim yihiin, isla markaana ay nolosheena bedeli karaan. Waxaa naloo sheegay in tijaabooyinkan ay ka dhici doonaan jasiirad gaar loo leeyahay, laakiin marnaba ma aanan filaynin in safarkani uu noqon doono mid loo raacayo diyaarad gaar loo leeyahay. Markii aan gaarnay garoonka diyaaradaha, waxaan filayay in diyaaraddu ay tahay mid kuraas caadi ah leh. Hase yeeshee, si toos ah ayaa naloo geeyay diyaarad gaar ah oo ka fog iridda weyn ee diyaaradaha. Muuqaalka diyaaraddani keliya ayaa inoogu filnaa in qalbigeenu uu si degdeg ah u soo jiito. Markii aan gudaha u galay, waxay quruxdu ka sarreysay wax kasta oo aan qiyaasi karay. Wax walba si taxaddar leh ayaa loo habeeyey. Jawigu waxa uu ahaa mid deggan oo raaxo leh, laakiin inkastoo quruxdaasi iyo nidaamkaasi uu ahaa mid laga sheekeyn karin, soo jiidasho ahaanna sidaas si la mid ah, dareenkii igu jiray marnaba ma uusan ahayn mid deggan. Dhammaan ma aanan ahayn dumar oo keliya, halkaasi waxaa joogay rag caan ah. Qaarkood waxay magac ku dhex lahaayeen dunida siyaasadda iyo ganacsiga, qaarkood xataa waxay ahaayeen ciyaaryahano. Waxaana si cad u muuqatay inay ahaayeen dad magac iyo awood ku leh dunida. Sida ay inoo eegayeen, ma aysan ahayn eegmo caadi ah. Eegmo kasta iyo dhoolla caddayn kasta waxa ay sidatay macno qarsoon. Innaga aad ayaan u walwalsanayn. Waxaan dareemaynay xasilooni la'aan, qallafsanaan. Innagu waxaan ahayn gabdho da'yar oo tababar ku jira, iyaguna waa rag da' weyn ah oo si kalsooni buuxda u fadhiya, sidii dad og wax dhici doona in ka badan inta inagu aan ognahay. Qaarkood si cad ayay uga tallaabeen xadka anshaxa, taas oo ahayd digniintii ugu horreysay, laakiin waqtigaasi si dhab ah uma aanan fahmin. Daqiiqado yar kadib waxaan go'aansanay inaan la hadalno si aan u yareyno xiisadda, maadaama aan isku dhoweyn oo aan wada fadhinay hal goob. Mid ka mid ah ragga ayaa na weydiiyey cod jees leh, isagoo ku hadlaya, maxaad u safraysaan? Waxa uuna si fiican u ogaa jawaabta. Iyaguna dhammaantood waxay ahaayeen kuwa na eegaya. Waxaan ugu jawaabnay in inagoo aan u socono tijaabooyin loogu talagalay tartanka boqorada quruxda. Markaas ayay is eegeen, indho degdeg ah ayay isku fiiriyeen, dabadeedna way dhoolla caddeeyeen. Dhoolla caddayn aan waqtigaasi la fahmi karin, laakiin maanta markii aan dib u xasuusto, waxay ila noqotaa mid cabsi leh. Isla markiiba dib waxay ka bilaabeen inay si caadi ah inoogu soo dhowaadaan, dhaqdhaqaaqyo yaryar iyo hadallo kooban, balse dhammaantood waxay ahaayeen kuwo aan lahayn dhaqan dad waaweyn. Mid ka mid ah gabdhihii agteyda fadhiyay ayaa nin ka mid ah isku dayay inuu ula dhaqmo si aysan jeclaysan. Markaas ayay si cad u diiday. Waxaan filayay inuu xanaaqi doono ama uu raaligelin bixin doono, laakiin waxa uu sameeyey ayaa ka sii xumaa. Waa uu dhoolla caddeeyey, dhoolla caddayn qabow. Dabadeedna waxa uu yidhi, halkan waa diidi kartaa, laakiin markii jasiiradda la joogo, arrintu sidaasi waa ay ka duwan tahay. Hadalkaas keliya ayaa iigu filnaa in dhiiggayga uu qaboojiyo. Waxaan eegay gabdhihii kale. Isla daqiiqadaas dhammaanteen waan wada fahnay in aynaan u socon tartan qurux oo heerkiisu sarreeyo, balse aan u soconno wax kale. Waxaan la garanayn, wax aan caadi ahayn. Taasi ayaa ahayd bilowga oo keliya. Diyaaraddu waxay ahayd albaabkii ugu horreeyay. Jasiiradduna waxay ahayd meel gebi ahaanba ka duwan sidaasi. Markii aan ka degnay diyaaradda muddo kooban, waxaan isri laga yaabay in cabsidu ay ahayd buunbuunin
oo aad adigu wax sawiratay. Goobtu waxay ahayd mid si wanaagsan loo habeeyey, wejiyaduna way dhoolla caddaynayeen. Soo dhoweyntu waxay u dhacaysay si nidaamsan oo xirfad leh, hoteel raaxo leh, qolal ballaaran iyo caraf udgoon oo marinada oo dhan ka buuxda. Wax walba waxay u ekaayeen raaxo iyo ammaan. Muddo gaaban ayaan rumaysanay muuqaalka, waxaan istusnay in runtii aan halkan u joogno tartanka quruxda. Laakiin nasiib darro degganaantaasi ma ahayn mid badan, waxay ahayd daah jilicsan, daah qarinaya wax madow oo aan la qiyaasi karin. Subaxdii xigtay waxaa ii yimid wicitaankii ugu horreeyey. Qolka lambarkiisu yahay hebel, dabaq hebel. Waqtigii tijaabadu waxa u dhacayaa waqtigaasi ayaa laygu yiri. Waxaan u dhaqaaqnay goobtii naloo sheegay, innagoo ay naga muuqato cabsi iyo xamaasad. Ma aanan garanaynin waxa na sugaya, balse weli waxaan isku qancinaynay inaanu ku jirno tartan qurux. Markii aan gaarnay dabaqii imtixaanka, haweeney shaqaale ah ayaa na qaabishay. Codkeedu waxa uu ahaa mid deggan, sidii qof akhrinaya qoraal horey loo diyaariyey. Waxay si toos ah u tiri, tijaabada koowaad waxay u baahan tahay inaad istaagtaan masraxa oo aad kortaan idinka oo aan waxba dhar ah sidan ama dhar la'aan ah. Hadalkaas ayay ku dhawaaqday iyadoo aan wax sharraad ah bixin, mana jirin wax hordhac ah. Wejiyadeennu isla markiiba waa isbedeleen. Wareer iyo qabow ayaana wada hareeyey. Ma aanan fahmin tan inay qayb ka ahayd baaritaan jireed, sawir qaadis ama wax kale oo macquul ah. Laakiin shaqaaluhu ma aysan kaftamaynin, xitaa fursad aan hal su'aal ku weydiino nama aysan siinin. Waxay si cad u tiri, tani waa shuruud aasaasi ah. Qofkii diida hadda ayuu bixi karaa oo waxa uu aadi karaa garoonka diyaaradaha, balse mas'uuliyadda isaga ayay saaran tahay. Waxay ahayd jumlad la yaab leh. Waxay ula jeeday mas'uuliyadda isaga ay saaran tahay. Maxaa loo soo qaaday garoonka diyaaradaha? Maxay u adeegsanaysaa habkan adag? Waxaan isdhaafsanay in cabsi ay ka muuqato, balse xaqiiqadu waxay ahayd in si dadban loo go'doomiyey. Waxaan joognaa jasiirad, cidna kama naqaano, mana haysano meel aan u cararno. Habka ay u hadlaysay waxa uu ahaa mid dareen leh. Waxay u muuqdeen xeerar aan xitaa su'aal laga keeni karin. Codkeeda oo dhan waxa uu xambaarsanaa hal fariin oo cad: doodi ma jirto. Markii aan galnay qolka imtixaanka, halkaas ayay si dhab ah uga bilaabatay in runtu ay ismuujiso. Qolkani marnaba ma uusan u ekayn meel lagu qabto tijaabo waxqabad. Ma jirin qalab sawir qaadis, ma jirin buug qiimeyn, xitaa hal haweeney kuma aysan jirin gudaha. Halkii laga filayay inuu noqdo hoolka midka lagu sameeyo tijaabada, waxaa yaalay miisas dhaadheer oo gudihiisa ay fadhiyaan rag oo keliya. Rag si fudud loo garan karo, dad awood leh, caana ka ah dunida. Waxay xirnaayeen suudad qaali ah. Da'doodu waa ay kala duwanaayeen. Qaar ka mid ah wejiyadooda waxaan ku arkay shalay diyaaraddii aan isla soo raacnay. Muuqaalka qolku ma lahayn wax xiriir ah oo la xiriira qiimeyn xirfadeed. Wax walba waxaa loo habeeyey si aan u dareenno in nala kormeerayo oo aanan ahayn gabdho tartan ku jira. Eegmada ay nagu eegayaan laguma sifayn karo si fudud. Ma ahayn eegmo garsoor ama eegmo qiimeyn caadi ah. Waxaan istaagay halkii la i amray. Jirkaygu waa uu qaboobay. Waxaan dareemay inaan ku jiro xaalad adag. Dabadeed waxay bilaabeen su'aalo la yaab leh, su'aalo aan wax xiriir ah la lahayn imtixaan xirfadeed ama imtixaan tartan qurxeed. Waxay ahaayeen su'aalo shakhsiyadeed oo bahdil ah, oo ka fog wax kasta oo loo qaadan karo qiimeyn rasmi ah. Waxaa si cad u muuqatay inaysan rabin inay qiimeeyaan xirfadeenna, balse ay doonayeen wax kale sida jirkeenna iyo wax la mid ah. Isla daqiiqadaas ayaan fahmay sababta ay diyaaradda ugu dhoolla caddaynayeen. Waxaan fahmay eegmadoodii, su'aalahoodii iyo habdhaqankoodii. Waxaan kaloo fahmay in safarkani uusan ahayn safar boqoradda quruxda lagu dooran doono, balse uu yahay safar loogu talagalay wax kale. Waxaa si taxaddar leh loo qorsheeyey, si nidaamsan loo diyaariyey, loona qurxiyey si runta aan loo arkin. Laga bilaabo maalinkaasi waxba uma sii ekaan wax caadi ah. Waxaan galnay marxalad cusub, marxalad mugdi ah, mid qofna uusan uga bixin sidii uu marka hore ku soo galay. Kadib tijaabadii bahdilka ahayd, waqti badan nama dhaafin kahor inta aan nalagu marti qaadin xaflad gaar ah oo ka dhacaysay mid ka mid ah qasriyada jasiiradda. Way caddayd in arrintu aysan ahayn mid ikhtiyaar ah, balse ay tahay qasab ka qayb qaadashada xafladda. Waxaa halkaasi ku aadnay inagoo isku dayayna inaan is adkayno. Qasriga aan markaani galnay waa uu ka duwanaa wax kasta aan horey u aragnay. Raaxo xad dhaaf ah, shandalyaaro u eg daruuro dahabi ah iyo sagxado aan caadi ahayn ayaa ka dhalaalayay goob kasta. Laakiin quruxdaasi oo dhan naqshadeeda waxaan dareemayay wax inay ku hoos qarsan yihiin wax madow oo aan weliba la qiyaasi karin. Markii aan gudaha u galay, waxaan mar kale arkay wejiyadii hore, ganacsatadii saarnaa diyaaradda iyo raggii fadhiyey miiska qiimeynta. Dad qaar ka mid ah waa dadaan hore u arki jiray warbaahinta, balse waxay ahaayeen dad gebi ahaanba ka duwan. Waxaa jiray hoos hadal, heshiisyo qarsoon. Markii aan gudaha u galnay, waxaan mar kale arkay wejiyadii hore, ganacsatadii saarnaa diyaaradda iyo raggii fadhiyey miiska qiimeynta. Qaar ka mid ah waa dad caan ah oo aan ku arki jiray warbaahinta,
balse halkan waxay ahaayeen dad gebi ahaanba ka duwan sidoodii hore. Waxaa jiray hoos hadal, heshiisyo qarsoon, mid waa uu qoslayaa, mid kale ayaa madaxa ruxaya isaga oo u jeeda gabar aniga inaga mid ah. Markasta oo aan arkayay muuqaaladaas, waxaan dareemayay in karaamadayda si tartiib ah la iga siibaya, anigoo aan awoodin inaan wax ka qabto. Mid ka mid ah ragga ayaa ii soo dhawaaday, nin awood muuqata leh, wuxuu si hoose iigu sheegay erayo weli dhagahayga ka guuxaya. Waxa uu iiga digay inaan diido, isagoo ii sharaxaya in hadda aan ku jiro adduun ay ka taliyaan xeerar kale, isla markaana adeecaddu ay tahay waxa keliya ah ee aan ku ahaan karo qof la tixgeliyo. Ma uusan iigu hanjabin si toos ah, balse qaabka uu hadlayay ayaa ka cuslaa hanjabaad kasta. Daqiiqad kadib, gacantiisa ayuu iigu tilmaamay sidii inaan ahay shay amarkiisa ku dhaqaaqaya. Waxa uu yidhi, hadda waxaad u tegi doontaa saaxiibkay, waa uu ku sugayaa, ayuu igu yidhi. Ima uusan weydiinin, mana uusan isiinin wax doorasho ah. Waxay ahayd amar cad, aniguna ma aanan lahayn awood aan iskaga indhatiro ama aan ku diido. Waxay i geeyeen dhinac ka mid ah qasriga, marin dheer oo go'doon ah. Halkaas cid kale ma joogin marka laga reebo saaxiibkiisii aniga i sugayay. Faahfaahinta waxa xigay ma ahayn wax si fudud loo sheegi karo, laakiin waxaan ogahay ayaa ah in daqiiqadaas aan ku waayay wixii igu dambeeyay ee dareen ah, ee ahaa inaan ahay qof go'aan iyo ikhtiyaar leh. Markii aan ka baxay qolkaasi, ma aanan ahayn qofkii galay. Waxaan isku dayay inaan neefsado, balse xitaa hawadu waxay u muuqatay inay diidan tahay. Habeenkaasi kadib, hal shay ayaan si dhab ah u fahmay. Tani ma ahayn jasiirad, ee waxay ahayd nidaam si xeel dheer loo dhisay, looguna talagalay in lagu rakaateeyo dadka caanka ah iyo qof kasta oo doonaya inuu dunida magac ka sameeyo. Tani waxay ahayd shabakad dhammaystiran oo xukun iyo gacan ku hayn ah. Wax walba si taxaddar leh ayaa loo qorsheeyay. Waxaa mar hore la sii diyaariyay qofka aad arki doonto, qofka kuu soo dhowaan doono, qofka ku dooran doono, iyo xilligu lagu oggolaanayo inaad dhaqaaqdo. Waxaan ka fogaaday ehelkayga iyo noloshayda dhabta ah, aniga oo ku dhex jira bahalo suudad qaali ah xiran. Si degdeg ah ayaan ku bartay in badbaadadu aysan la macno ahayn xoog. Badbaadadu waxay ka dhigan tahay inaad si fiican u barato doorka laguu qoray. Waxaan bilaabay inaan maalin kasta xirto weji qarin. Waxaan qosli jiray markii la rabo inaan qoslo, waxaan hadli jiray markii la rabo inaan hadlo. Waxaan isku muujin jiray qof aqbalay oo adeecsan, kana mid ah kuwa jawiga wax ka qaadanaya. Laakiin gudahayga aniga wax walba waa ay ka duwanaayeen sidaasi. Maalin kasta waxaan ku jiray aamusnaan iyo go'doon ii gooni ah oo qalbigayga ka imaanaya. Maalmihii xigay nolol ma ahayn, waxay ahaayeen keliya isku day badbaado. Waxaan isku dayay inaan soo jiito dareenka dadka goobta ku noolaa, inaan cidna aanan ka xanaajin. Si tartiib ah ayaan u arkayay goobta oo isku beddelaysa xabsi aad u weyn oo aan lahayn meel laga baxo. Waqti yar kadib, waxaa bilowday inaan ogaado xaqiiqo argagax leh. Dhacdooyinka loo yaqaano biladda, kaas oo ay ku tartamaan dadka doonaya inay magac ka helaan biladda quruxda adduunka, waxaa loo adeegsadaa dabool. Gabdho qurqurux badan oo yaryar ama rajo leh ayaa laga keeni jiray gobollo kala duwan. Waxaa loo soo bandhigi jiray fursado aad u soo jiidasho leh, kadibna si tartiib ah ayaa loo hagi jiray loona gey jiray meesha ay raggaani rabaan. Dushooda wax walba waxay u ekaayeen kuwo nidaamsan oo xirfadaysan, laakiin dhab ahaan ujeedadu waxay ahayd mid gebi ahaanba ka duwan. Dooradaas waxaa loo qaabeeyey si loo qanciyo rabitaanka ragga gacanta ku haya wax waliba. Raggan la'aantoodu ma aysan soco jirin. Waalidiintu waxay gabdhahooda u jiri jireen iyagoo aaminsan inay siinayaan fursad dahabi ah, nolol ka wanaagsan iyo ka mustaqbal fiican. Laakiin qaar ka mid ah gabdhahaasi noloshoodu mar dambe sidii hore ma aysan sii ahaa jirin. Qaar ayaa gebi ahaanba ka dabar go'i jiray dunida, qaar kalena ilaa maanta waxay la ildaran yihiin dhaawacyo nafsiyadeed oo qoto dheer, mana awoodaan inay ka hadlaan wixii ay soo mareen. Markii arrinta halkaasi ay gaartay, waxaa si buuxda aan u fahmay in jasiiradaasi aysan ahayn meel go'doon ah, kaliya ay ahayd xarig ka mid ah shabakadaha ugu ballaaran. Shabakad ka bilaabanaysa munaasabad oo u muuqata kuwo sharaf leh, kuna dhammaanaysa qolal xirxiran oo xaqiiqadeeda ay ogyihiin tiro yar oo dad ah. Qofka bannaanka jooga waxba kama shakiyo, qofka gudaha ku jirana kuma dhiirado inuu ka hadlo arrimahan. Waxaan marnaba la filaynin waxa uu ahaa nuuca martida ka soo muuqan jirtay jasiiradaas. Waxa halkaas aad ku arkayso si buuxda ayay uga hor imaanayaan waxa aan wararka ku maqalno. Dadka kala socday dalal ishaya iyo jihooyin aan caadi ahaan isku imaanin ayaa wada fariisanaya, iyagoo u muuqda koox isku mid ah. Waxaad arkaysaa Ruush iyo Ukrainian wada fadhiya, iyo shakhsiyaad Carbeed oo si fudud ula sheekaysanaya Israa'iiliyiin. Khadadka siyaasadda oo dhan waxay u muuqdaan inay ku dhammaanayaan albaabka jasiiradda. Halkaas waxay ahayd meel ay ku kulmaan dad aan weligood si fagaaro ah iskula kulmin, dunidana isku neceb. Waxaa jiray wax aad u adag in la yiraahdo. Wax kasta oo ku soo maray jasiiraddaas waxay ahaayeen cabsi, balse Epstein laftiisa ayaa ahaa cabsi ka weyn dhammaan wixii aan halkaasi ku arkay. Ma ahayn nin qayli jiray ama caadi ahaan u hanjabi jiray, taas oo ka soo horjeeda waxa uu ahaa nin qabow oo si caadi ah
dadka kalena la mid ah, qabow aanan weligii arag bini'aadamka kalena ka duwan ayuu lahaa. Ku dhowaada habeen kasta jasiiraddu waxaa buuxdhaafin jiray marti, muusig, buuq iyo qaylo, iyo qosol culus ayaa hawada qabsan jiray. Dhowr saacadood kadib qof walba wuxuu lumin jiray xakameyntiisa marka laga reebo Epstein. Epstein ma uusan cabi jirin mana uusan qaadan jirin wax maandooriye ah. Waxa uu jeclaa inuu miir qabo una ahaado qof iska caadi ah, mana ogolaan jirin in maskaxdiisa uu waayo. Laakiin miirkiisu ma uusan ka dhignayn mid caadi ah. Waxa uu lahaa maskax qabow oo xisaabsan. Meelaha daciifka uu ka yahay qofka ayuu ogaan jiray. Uma uusan baahnayn inuu qayliyo ama uu amar bixiyo. Hal eegmo uu bixiyo ayaa ku filayd inuu gabadha ay barafoodo, maskaxdeeduna ay u sheegto inay hortaagan tahay nin aan loo caroo karin. Taas keliya waxay ahayd cabsi aan la qiyaasi karin. Maxwell iyaduna waxay ahayd qayb joogto ah oo ka mid ah kooxda kormeerka. Joogitaankiisuna ma aysan ahayn mid lagu sifayn karo dumarnimo ama marti caadi ah. Marka hore waxaan moodayay inay caadi ay u tahay qof joogta. Marka hore waxaan moodayay inay si caadi ah u tahay qof joogta oo meesha ka shaqeysa, balse si degdeg ah ayaan u fahmay inay meesha u dhex socoto sidii qof wax walba og, qof wax walba garanaya. Waxay si fiican u taqaanay halka aan istaagno iyo waxa indhaheennu ay qabtaan iyo xitaa sida aan u eegno. Waxay noo kormeeraysay si ka badan inta uu isagu noo kormeero, laakiin kormeerkeenu ma uusan ahayn ilaalin ee waxa uu ahaa kormeerka ay nagu haysay mid u muuqda lahaansho. Waxaana loola dhaqmi jiray sida inaan nahay mashaariic loo diyaarinayo sida ugu habboon ee dhankiisa. Xiriirka labadoodu waxa uu lahaa wax aad u la yaab leh. Ma ahayn jacayl, mana ahayn iskaashi caadi ah. Waxa ugu dhow ee lagu sifayn karo wuxuu ahaa daacadnimo xanuun leh. daacadnimo ka dhigaysa inay samayso wax kasta si aysan u lumin asaga kalsoonidiisa. Xitaa marka ay ka caawinayso xulashada gabdhaha, ma aysan samayn jirin keliya danihiisa. Waxay sidoo kale rabtay inay hubiso weli inay tahay dhankiisa. Laakiin waxa ugu yaabka badan ee wax walba bedela waxa uu ahaa sheekada hoose ee jasiiradda oo dhan hal mar rogtay. Halkaasi waxaa joogtay gabar Ruushiyaan ah. Quruxdeeda waxaad ku tilmaami kartaa mid aan inaba caadi ahayn. Wejigeedu waxa uu lahaa muuqaal gabar European model ah oo classic ah, balse indhaheeda waxaa ka muuqan jiray muruq qarsoon, sida qof mar walba ka baqaya wax aan la arki karin. Laga bilaabo daqiiqadii ugu horreysay waxaan dareemay in Epstein uu la dhaqmay si gebi ahaanba ka duwan gabdhaha kale. Gabadhaasi Ruushyaanka ah uma uu soo galaa jirin martidu kale inay u soo dhawaato, xitaa inuu si dheer u eegin. Taas keliya ayaan kugu filan inay tahay xan iyo hadal hayn si degdeg ah noogu dhex faaftay. Qaar gabdhaha ka mid ah waxay aaminsanaayeen inay ahayd jacaylkiisa dhabta ah, qaar kalena waxay rumaysnaayeen inay xiriir la leedahay awood ka baxsan jasiiradda. Laakiin hal shay ayaa xaqiiqo ahaa, dhammaanteen si cad ayaan u aragnay farqiga. Epstein gabadhan si gooni ah ayuu ugu dabacsanaa. Maxwellna maseer ayaa ka muuqan jiray mar kasta oo ay aragto. Waxaana ka arki jiray maseerka indhaheeda. Waxaan arki jiray sida gabadhaasi ay garbaha u qabanayso, markii gabadha ay garbaha qabatana waxay ula dhaqmi jirtay si aan wanaagsanayn, iyo sida ay albaabka ugu xiri jirtay marka gabadhu ay qol gasho. Waxay ahayd dagaal aamusan oo u dhexeeya laba habeen, mid u malaynaysa inay tahay boqoradda meesha iyo mid kale oo u muuqata inay sidatay sir ka weyn sirta jasiiradda lafteeda. Kadibna waxaa dhacay wax marnaba aan la filaynin. Subax ayaan soo toosnay, gabadhii waa ay maqnayd, mana jirin boorso la qaaday, ma jirin dhar la aruuriyay, mana jirin sagootin. Waxay u baaba'day sidii inaysan weligeed jirin. Waxaan weydiinay qaar ka mid ah shaqaalaha, kuwaas oo ka aamusay. Qofna kuma dhiirin inuu si toos ah u weydiiyo su'aal ninka lagu magacaabo Epstein. Laakiin waxa aan marnaba iloobi doonin waa muuqaalka wejigiisa maalintaasi. Tan iyo maalintaasi jasiiraddu sidii hore ma aysan ahayn. Albaabadii sidii hore si ka duwan ayaa loo adkeeyay. Ilaalada waa la jibaaray. Wejiyaduna waxay bilaabeen inay sii dabar go'aan. Xitaa annaga habdhaqankeena maamulka nagu wajahay wuu isbedelay. Waxay noqdeen kuwo qallafsan. Hadalkooda waa uu yaraaday. Feejignaantooduna kor ayay u kacday. Innagu ma naqaano halka ay gabadhaasi tagtay, mana aqaano wax dhab ahaan ku dhacay. Laakiin hal shay ayaan hubaa. Haddii aan waqtigaasi saxda ah aan baxsan lahayn, aniga ayaa ahaan lahaa qofka ku xiga. Saaxiibayaal, halkaas ayay ku dhammaatay sheekadii gabadhani u tartamaysay boqoradda quruxda, taas oo dhacdooyin la yaab leh kala kulantay jasiiradda Epstein. Haddii ay taasoo booqashadaadii koowaad ee janaalkaaga Xalana Media, nagu soo biir oo ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga.